ها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها هبدا naga daawanayo waa mahadsantihiin waa mar kale iyo labadii cajiibka ahaa damaajigdu oo maanta idiin wada war farxad leh laakiin intaana farxadda saas idinku siinin abaa yaasmina soo dhaweynaya mataantayda yaasmin soo dhawow السلام عليكم عليكم السلام soo dhawaada asxaabta nagu xeeran maanta waa maalin farxad leh inkastoo daalana oo sararaha in laga soo tumaa u maleysid soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada faahfaahinta waa geli doonaa laakiin waxaan idinkugu bishaaraynaynaa waxay soo jiitantaba waxay soo socotaba waxay soo guuraysaba waxay soo jarmaadaba ombasif maanta oo ay bisha tahay sebtembar kowdeeda sanadka 2023 waxay imaatay bannaanka ayay u soo baxday saacadda tanaadin la hadlaayo dhowaan dhammaanba xubnaha ombasif hadday noqon lahaayeen founding members xubnihii lagu aasaasay iyo hadday noqon lahaayeen xubnihiisii iibiyayaashaha ee gadaal kaga biiray wejiga labaad kulligoodba waxa ay dhowaan arki doonaan back office cusub ama OES cusub oo hadda shaqo ku socoto dhowr saacadood kadib live uu noqonayaa iyada oo visa card mastercard wax walba lagu download gareeyay si subscriptionka lacagta aa u baxsano walaal anigu diyaar baan ahe adigu diyaar ma tahay yasmin over to you ها waxaan ka soo baxnay shir anaga la qabtay markay ahayd oo degdeg ah oo aad u farxad badan oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan dad adduunyada daafeeda degan oo isugu jira madax iyo dadka ganacsigan ku jiro ugu yaraan halkii janaal oo ay leedahay ombasif ama ay dadka ka tirsan leaders waxa ay ka daawanayeen 1 milyan kor u dhaafeen shirkana dad badan ku jiray afartii habeenimo dalka UK markay ahayd ayuu shirka bilaawday oo Mareykankana u tahay 11 fiidnimo waxaan ka soo baxnay saacadaas daqiiqado yar ayaan haysanaa finally sida aamin idin sheegtay ombasif 5 sanadood gurigeeda ku soo samaysatay muxuu ahaa agabyadeeda annaga markhaati ka annaga beta testers waxa la yiraahdaa ahayn sida naloo sheegana oo over delivered iyo promise-kii uu naga qaaday ninka meesha iska leh CEO-gana Ash Mufarax uu yiri dakhligayga aniga waa la qaybsanaa waa iska aamusi karay waxaygana muxuu ahaa sidaan doonaan ka yeelin karay magaca reerkaygaan u baxsan karay cadaawad badan aan la kulmay dhib badan aan la kulmay khiyaano badan aan la kulmay dad xataa aniga iga tirsan oo muxuu ahaa dhibayaa soo mar laakiin waa idin dagaalka idin tagaynay mar kasta wuxuu dhihi jiray do it or die waxaan sameynaynaa taariikh lama ilaabaana marka caawa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay arrin muhiim oo aad aan u jeclaysta aniga waxaana ka mid ahayd dardaaran inta kala aamina idin sheegayso laakiin inta ugu horeyso muhiimka waxay tahay oo dadkoo dhan anfici kara tala ahaan iyo xigmad ahaan dadku soo dhawey madaxdii meesha ku jirtay wuxuu ku bilaabay hadalkiisa buuggeeni wuxuu soo xirmay safarkii dheeraa ee aanu ku jirnay 5 sanadood caawa waxa waa habeen taariikhi ah oo 1 Sebtembar ah bisha 9aad sanadkan goobo badan oo YouTube-ka ah waxa naga daawanayo 1 milyan ayay kor u dhaafeen waxaan uu ku bilaabay haddana isagoo weydiinayo waa kaftan badan yahay nin iska hanbalo waaye maxay caawa afilaysaan dadkii meesha nagula jiray ayuu weydiiyey oo intaas oo sano la soo waday oo dal walba ka socdo weliba dad Mareykan aad ugu badan yihiin oo darajooyin kala sare iyo dad muxuu ahaa walks of life kala duwan ka yimid marka waa la kaftay qof walba wuxuu saadaaliyay oo connect ma suuqa loo soo bixiyay ma dad madaxa sida naga ballan qaaday soo galay oo iibsaday waxaasito marka wuxuu kaloo nala tusiyay sawir atooraha shaaruqan la yiraahdo hindiga ah isagoo Dubai isku sawiray xayeysiinta ombasif oo Dubai mall ahmarahay marka dad badan wuxuu ku bilaabay hadalkiisa uma qaadaan tallaabo jihada ay doonayaan ayagoo raba inay u jihaystaan yoolka ay rabaan noloshooda haddii aadan lahayn ajando kuu degsan oo yani kugu hagaayo yoolkaaga waxaan caaw idin caddaynayaa inaysan nasiib ku dhicin horumarka intaa meel iska fariisato inaad dhihin irsaaqada waa sugayaa dadaalka waa sugayaa horumarka waa sugayaa
randomly u isticmaalo nasiib kuma timaado horumarka ama noloshaada bariiskeeda qofku waa inuu dadaalaa marka meel inaad iska fariisto ku nasiibso aad tiraahdo maaha waa inay kuu caddahay halka aad hiigsanayso adiga horta jiha ma leedahay wuxuu kaloo ku xijiyay hadal kaloo aad uga helay haddii aadan ficil ku darin dadaalkaaga fursadda aad doonayso waxay ku dhammaanaysaa mid eber ah fursadaada nolosha aad haysatan inay wax kusoo galaan ama horumar ama isbeddel aad suubisana waa mid eber calaamadiisu ay tahay wuxuu kaloo yidhi ilaa aad qaado tallaabaha wax yani ku hagaagaa mal haddaadan action ku darin yool kasta aad leedahay ama halkaa higsanayso nolosha waxaa laga yaabaa inaad soo aragto inaad adiga mashquul tahay oo maanta o dhan aad ruclaynayso oo ordayso oo aad isleeda ka meesha ugu dambeeyaa magaariba laakiin mashquulkaaga hadduu miro dhal lahayn bilaash lay u daaloosa ayuu yiri intaas itaan ku joojinaa aamina ku darinta kale aniga waxaan raacinayaa digniinaha dhinaca sharciga ah oo uu na siiyey Ashma Faarax oo ah ninka fikirkiisa iyo hal abuurkiisa iyo qalbigiisa iyo rabitaankiisa uu ku yimid kambanigan Ombasif asaga kaligiis ayaana iskale wuxuu nagula ballamay si fiican dhagaha u fura waa dadka hadda Ombasif ku jira iyo kuwa raba inay soo galaanba wuxuu yidhi dad waaweyn dowlado madax intaba Ombasif ku soo biireen ma raba buu yiri magacina u sheego wuxuu yiri sirta kambaniga waa inay ilaalisaan waana tahay inaad ilaaliso waxa kale uu sheegay in maalin walba aan lacag kaliya laga hadlin waxaan waa ganacsi aan dhammaanayn ma nihin ganacsiyada biibilayaasha ah oo marka la dhaho maaragtay asaga intaas ma dhihin anaa ku darowhayaa marka konton qof keentid $50 hele la dhaho ma aha ganacsigan waa sustainable ganacsi waaraya waay xataa haddaa adiga dhimato kaa haraya waay oo ilmahaaga qoyskaaga hooyada walaalaha aa uga tegi karto intaad dardaaranka tagto saa la ajligeed teknolojiyadana heerkii adduunka maraysa maanta soomaaliya way ogtihiin waxa aniga ku hadlayo af shiinees ma af soomaali aad kula hadlaynaa af soomaali ayaad kula hadlaynaa inaad fahamtaanaan rabaa sababta af soomaali ugu hadlaan luuqadeena waay communitygeena tiin dadkeena tiin na fahamtiinaan rabaa waxaana lagala dardaarmay hadda marka banaanka ilaa u baxna maanta dadka inaadan la wadaagin screenkaaga dambe because screenkeena dambe wax kasta ku qoran sirteena ku qoran nambaradeena ku qoran waxa ku qoran walletkeena ku qoran qasnadii lacagta noogu soo dhacaysa ku qoran inaadan la wadaaga adoo faanfaanaya ani waa aqaanaa Soomaali waa fududna aad u fududna ha aniga intaana ka screenshot lag maxay too TikTok lag lama ogolo haddii lagugu qabto ilaahay waa kan maqlaa ilaahay dadkayga waa u sheega maanta haddii lagugu qabto yiraash xataa adan lagu ogeysiin account-kaaga waa la tirtiraa beware manihin dad sharciga dad waxaan nahay jecel mar walba sharciga khilaafaan midka islaada wala xoo hogaamina oo Soomaalida dhan waxa uu yahay sharciga oo khilaafa qalad loo gala waa qasab please isilaaliya hala wadaagin dadka back office-kaaga oo wax kasta ku cad yihiin faa'iidada aad gasho macaashka aad gasho dadka meesha kuugu jira maxay aatoonay sii iibinta shirkadu dadkay kuu keentay shirkadan marketing ayadaa samaynaysa inaa xaafadaha u gananafayso dad ma kugu qasbayso haddaada waxba iibsan karin waxba diri karin dad keensan karin qasabma dadka aad keensanayso dheeri waay iyada ayaa leh qaab suuqgeyn ee iyada leeda that's why ay unique u tahay ay uga duwan tahay shirkadaha iyo businessadii hore oo dhan marka ha tusin dadka intaad kala badbadato yaa aniga ma raba inaan cadad idin sheego laakiin intaad kala badbadato oo wax maxeeto xafiiskaaga gadaal yaala kor iyo hoos u boodboodo ama qof madaxa oo lagu hoos keenay ilaa adiga xaga u leedahay magaciisa ay aragtid adduunka caanka ah oo weligaa aadan ku riyoonin inuu adiga affiliate ku noqdo kambanigu ku hoos keeno oo kugu aamino yaa
intaad kala badbadato maryoolayaanna waa isnaqaanaaye dadka ha la sheer garayna back officekaaga that's a warning ilaahayna maanta markhaatiyu ka yahay intiinaan daawanaysana markhaatiya ka tihin inaa idin sheega oon idinla wadaaga yasmin over to you ها waxaan ku darayaa macnaheeda maxay tahay dad badan oo xataa waxaa jira founders oo hadda taan la yaabayay oo 5 sano xataa ani iga soo reey ani aamin sanad le meesha ku jirnaa 5 sanadood dad ku soo jiray oo wali wareersan oo dhahay sootiil laha company-gu ii shaqeynaya adduunyada meel lagu arkay mal inaad sariir iska jiifta adiga oo cuntadii suuq inta kaaga doono aniga lacagta bixiyo kuu soo kariyo haddana sariirta kugu keeno haddana wali aad sii jiiftid oo gacmaha sasta u kala laalays ay dhahay afkii ugu gur adduunyada hooyadaa ku dhashay xataa ma laga yeelaa haddaa qof weyn socdo lagu yaaba waxaana loo baahan yahay qofka bini aadamka inuu leeyahay why waxa leeyahay what's your why war adduunyada maxaa u nooshaa aniga waxaan u noolaa inaan asaagay ka hormaro inaan ubadkayga u sameeyo nolol in walaalahay iyo ehelkayga aan muxuu ahaa hanto inaan gurigeeda naag ku filan noqdo inaan muxuu ahaa qof weyn oo nool ah biilasheeda nolosheeda bariiskayga horumarkayga haddaan wax reeban karo haddaan guri dhisan karo waxaas dhan aan u joogaa laakiin adduunyada anuu ordaay leh haddana lagaa wadaaya ciil ma qaba aniga ama aan wax sameyn ama aan wax sameyn laakiin nolosheeda maalinta 19 jir ah ilaa maalinka maanta waa ordaay marka macnaheedu muxuu yahay suuqa u baxnay Soomaali taas wali inay fahmin laga yaabo suuqa u baxnay waxa waaye company-ga waa la socotaan wuxuu soo saaray wax isku qofalan single sign on aliida waa company-ga ugu horeeyay oo soo saara wajibugaaga iyo TikTok-gaaga iyo Google-kaaga Gmail-kaaga iyo everything oo isku ka qofalan isla markaas wuxuu ku siiyay muxuu ahaa degalka internet-ka degalayd magac adiga lagu dhahay la bax magacaagi already anaga magaciidina waa la wareejiyay dad ku jira way og yihiin hebelo technology ama hebelo wave ama waxa la bixisa hebelo waxaas ama waxaas magac adiga jeceshaa la bixisa oo technology ku saabsan ilaa company waa technology company-gaanayta markaa maxay ka macno tahay waxa uu soo saaray fogaal aragga video conferencing tool oo AI powered ah kaga duwan kuwii hore macnaheedu adduunyada waxa marka lagu dhahayo dad madaxa soo galay waa lagu hoos kana dadka madaxa si u soo galayaan ma aha inay adigoo kale affiliate noqonayaan adiga adaa favor lagu sameeyay aniga 100 shilin ama 200 hadaan baxso waxaas lacag ma aha company waa weyn ay maanay ninka hadalkiisa silsilad waa 5 sano na soo quraaminay waa inaad fahantaa hadalkiisa silsilad isku xiran waa wuxuu ballan qaaday inuu noo sameeyo marketing wuxuu ballan qaaday inuu company-ga si toos ah asaga wax u gaday waana wada ogtiin inay dawladda Dubai ay muxuu ahaa soo gashay on passive يعني ay customer ka noqonayso waa ogtiin inay dawladda Egypt qaadatay xaq waxbarashada ay isticmaalay software-ada on passive waa ogeydeen indhihiina shantaas saarteen 500 iyo ka badan super cars majlis niman multimillionaire ah inay meeshaas marayeen kuwaas waa soo xariya asaga aqligaaga waa inaad ku fahantaa taas kuwaasaa customers isagana wuxuu ku ballan qaaday inuusan waxna qof toos uga gadin oo connectina ma la gada waa subscription qofka online ku soo galaya linkiyadaada la siinaya saasa la soo wada hoos geenaya qof walba linkigiisa asaga ku hay meel wuxuuna ku yiri waxa loo soo kala hormaraya first come first serve marka albaabada u ballaqo qofka ugu horeeyo oo baxsado oo yani shirkadda ka qayb galo shirkadda adiga shirkadda tahay alaabtana wax ka leedahay adaaba rukunti waa rukunti ayaga dadka soo galay haday dawladda Dubai tahay haday booliiskooda yihiin iyo dawladda Mareykanka haday tahay United Nations haday tahay intaba ayada subscription ka qaadanay waa sida hadda midka Zoom-ka oo jiro kale laakiin ka casirsan oo wax walba hal meel isku keenay social media marka ka hadlayna iyo waxyaabahan dunida ka jirta teknolojiyadan iyo ababkaanaytan waa aragteen hal mar asaas loo balqa waa lagu soo yaaca soo yaacidas isna ma laga baryaa suuqa u baxnay macnaheedu waxa waaye wixii ayaa suuq u furnay waa la gadan karaa waa la rukuman karaa waa la subscribe gareyn karaa laakiin adiga company-ga booskiisa ku jirta ash mubaaraxa la socota oo faxataa farca ka farcamay enterprise aan leedahay marka wuxuu noo ballan qaaday inuu dad ka gadin toos ah company-ga asaaba ku offer gareeyay bishalay ilaa haddana ballantii aan ku socdaa ayuu yiri marka haddaad boobsiisto oo hore account-nada ka gasho dadka siday maanta isu qoraan saacadan hadda marka albaabku waa la furay hadii aamina gasho anna ku dabciyo aamina kow la siinaa saasa gaal islaam bal isu daba dhigaa
ماشي اي حسابنيس نمبر 1 ساين اب قري 2 ساين اب قري 4 ساين اب قري شن كي شن هذا ساين كي بلي ماذا ساين اب قري dadku hayo wuxuu ku yiri rotation ma taqaan rotation waxa asaasi u wareegsanayaan number 1 ku wareegsan 2 3 4 5 saasa loo qaybina macnaheedu waxa markaad adiga la baxdid shirkadaada enterprise-kaaga oo aad bahalkan lahaati adaa leh amaal gashato dadka subscription ku qaadana already you are done deal hada kaligaana matid maxaa la baqay Soomaaliyeed ninka Soomaaliga wuxuu loo ordaa ama gabadha Soomaaliyeed kuwa affiliate-kana 143 baanay loo ordayaan oo waliba hal account aan leenahay annaga waliba ani aamina xataa laba account aan leenahay waa ka soo daanay meesha waxa ka horeeyo inta aragto oo cadaan ah oo arab xataa leh oo Mareykanka wada degan oo wada lacag leh oo iyagii investigation $5,000 kuwaas waxay helayaan helaysaa macnaheedu ma aha waxay iyaga maanta sameynayaan inaad sameynayso because aad markasta waa ka tabarliidad boqolkayga anoo laba ii dhalo asxaan ku qaba shalay labadaas boqol muhiim marka adigu inaad ganacsado tahay maxaa laga rabaa ganacsado inaad tahay reseller inaad tahay af Soomaali si fudud aad kugu sheega elementary level aad kugu sheega adigoo meel walba jooga adduunyada aniga warshadan leh warshadeed saas waxay u daabacdaa qalab ama waxay u daabacdaa kareemooyin ama barfuunooyin daabacdaa waxaan ku keenay adigoo maskiina wax aniga ku soo gartay waxaan ku dhaw waa business aan ku kicina dadka masaakiinta wuxuu yiri ninkaanid koran u soo qaadaa inta qof oo yani faqriga oo dukaan furan karin ayaa maanta adoo magaalada joogta ama garowe joog ama boosaaso joog ama hargeysa joog ama muqdisho joog markaban ka balan qaaday oo alaabaan ku keenaya waa ku soo qaaday markabki markaas saa kugu soo xiray dekada adaan gacanta ka saaray markaan gacanta ka saaray lacag yaraan ku sii dukaankiya bam ka siisatay tabeelayan weliba kugu dhiji ka waran markaas weliba inta ku sameeyay xayeysiino flyerska inta ku sameeyay axad magaalada yaa ku dhaaf ugu qaybsan waxaan ku dhahay berita markabkaanita dhamaysid berita markab kale ayaa soo socda aan ku keenaya maanta qof ganacsi lahaa ta baqaarad furatay dukaanna wuxuu kaaga furan yahay faras magaalaha markabkina adigu dekad kugu xiray maxaa soo bilay ma jiifan lahayd yaasmin waxay ga ballan qaaday inaa wixii baadigi kor ii qaadis ma jiifanay mise markabkaas waa inaad suuq inta dhex gasho magaalada dukaamada ku yaalo dhan ganacsatada ilaa gobolada ku dhow dhan aad gaarsiis inta dukaan oo ku taala tiraahday war barafuunadan inta casrigan keen ama burkaana keen ama baastadaan keen oo markabkaas adiga waa inaad dhamaysaa adaa laga rabaa waliba aakhirata leen ah markabka markaad dhamayso markabka labaad customerska u keen leeyahay laga rabaa aniga qof waxaan ahay adiga supplier-kaaga ahay asxaanaan ku sameeyay qof macquul ah ina ganacsato cusub tahay waa ku ogaa dad badan aan kula saaran doontaan waa ku fahmaa dadaalkeedii laga rabaa haddii alle dadaalkeedii aniga muxuu ahaa maxaan sameynaa anigaba Soomaaliya hal sano ka hor luqadda Ingiriiska bas aadan dheer la aniga dad gaalana ma qoran aaminan dad gaala ma qoran Soomaaliyan gaarno qoran okay YouTube hadaad soo gali karin muxuu ahaa saa ku gaari kartid gaar waa ogta qabiila ka tirsan tahay ehelkaaga asxaabtaada joogan kulliga waxa ku jirnaa WhatsApp group aan ku jirnaa oo ilmaadirada inka buuxaan qaaran kan bixinaa dagaalada lagu ololiday oo sheeg dadka hadaa weysidoo dadaashid laakiin ninkan wuxuu la fiirsanaa asaga dadka dadaalka badan oo kor isku soo qaadeen Facebook-yadu fiiriya YouTube-yadu fiirina wuxuu buu fiirina waa la socdaa hebel aan dhigi karaa yiri dadka dadaalka badan xataa wuxuu ku daray foundership waa dhamaana bisha September koodii bilowday kelmadaas founders oo la aasaasiyaasha dhibaato badan ay yihiin waxa igu qabsaday dadka legalka ee maaliyadaha igu qabsaday because uu ku qaldan inuu yiraahdo ila aasaasiyaal waa dadka nin iska gacan furan oo qalb furan waa soo afjarmaya waxaan u bixin doonaa darajooyin kale oo aan waliba ku abaalmarinayn dadka firfircoon maxaa ka reebay marka inaad noqoto wakiilka ugu firfircoon magaalada Hargeysa maxaa ka reebay inaad noqoto wakiilka ugu firfircoon Muqdisho maxaa ka reebay magaalada inaad noqoto wakiilka ugu firfircoon Jubbaland oo dadkaagana aan noolayso maanta ma been iyo dagaal iyo lugooyan isku noolayna maanta fursada wadankan timid
waxa anagu u oomeyneen waxay qof kasto Soomaaliya inuu qoyo oo dalkeenna qoyo halkaas go'aan aniga gabadhan wada qaadanay ciidatiin idin ma naqaan mana rabna xataa inaan ogaano reerkaatiin hal go'aan aan qaadanay waxay halka go'aan aan muxuu ahaa wax wada qabsano Soomaaliya global stage aan taaganahay marka suuqa oo bacna macnaheedu waxa waaye alaabtiin aan isla suubsanay aan suuqa geeyay wuxuu idin sheegay inay madax boqorre kings and queens la dhigi karayna kula hada booliiska Dubai oo kale customers inoo maalintii baabuurta inay la socdeen waa ogey haddaan muxuu ahaa la soo qaadin nimankaas yani lagu hoos keen booliiska Dubai yani iyo hoos joog maadhe bas sawire confidentiality in la yeesho waa maantana Mombasa waxay ku samaysay shirkad enterprise la yiraahdo oo domainkeeda leh oo website-keeda lagu sameynaya waa lagu sharci gareeyay web analytics waxa la dhahaa jira hadda adduunyada la socoto hadda wasaasa magacaaga waxa wareejinaysa internetyada adduunka wareejina waana aragteen hadda oo trimkaaga tagtid inta ku jirtana inta ka maqan marqaad u tahay waa la dhaqaaq wala 240 kaaga adaa asxaan ku qabo inaad la talaabsato dunida nin dhakhtar ah ama nin ex military ah oo Mareykanka United States niman buugu qoraa ku jiro Jeffrey Marlow buugu qoraa dagaaladii adduunyada Afrika iyo Asia meerso Soomaaliya ma jirto aqliga uu leeyahay ninkaas maxaa weyn oo qoraaga ah oo askari Mareykan soo ahaaray airtime Dr. Bila ku jiro isku darajaatiin in Mombasa ka tirsantiin global doctor summit ku jira adduunyada jaamacadaha adduunku tababara wuxuu ku jira the most paid wuxuu ku jira dhaqaatiirta ugu lacagta badan leh oo ugu mishaarka badan ku jira marka qofkii qorigiisa baxaya lagu qabsan maanta hadda isxaankaasi teeshay hadda kaartu waa adiga nuucay soo tii leeyahay waa la ii shaqeyna qabiilkaaga ma ku shaqeeyay dagaalku ku dilay runta ma sheegayna misbaan sheegayna niyow muxuu intaas inta la sheegay anagana waa dhaqaaqnay baski yuskaati qof dambe aniga la hadlaa ma jirto waa la dhaqaaqay sida adiga hor ku mararsan la adiga ku taala hawsha okay Yasmin ana soo galaayo marka ka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idin kala hadlo after all maxay tahay sababta Haash Mufaarax oo intaano qof oo ula wadaagay uplifting humanity ula wadaagay in uu garabka ka soo qabto oo kor u qaado oo bini'aadanimada uu wax ka qabto adoo faqriya hel oo waa ku nool qad oo quudo ku nool in uu ku sameeyo ganacsi waaraya ya ganacsi waaraya inuu ku sameeyo oo aan ka dhamaan weliga oo xataa haddaa dhimato carruurtaadu ka dhaxlaan maxaana karana la ka rabaa uplifting humanity wax ka qabashadii bini'aadanimada inaan wadno ballantaas anaga isaga naga dhaxayso ogaada anaa keligay dhargaa 100 guriyaan gadaa 100 baabuuraan gadaha nimanka waa aqaana aniga Soomaalida waa qaafan afaran guursaa iyo 8 naagood looma baahna uplifting humanity wax la dhahay ninkan ballan la gasho ballantaas aan la gasho inay oofisaa ugu yaraan hal qof noloshiisu waa inay bedeshaa sida adiga noloshaada loo bedelay hal qof noloshiis waa hadda ugu yaraan wada cirkeen dhulku isku soo duma hal qof noloshiis inay bedesho waa oo bahay boqolaal bedeli karnaa hadda isnoolayna marka aniga kaalayo midoobeeda dhii maayo inaad midoobe weliga waa ogahay qaar inta igu soo qoro waa ma daascaanood ka hadasho maxay iga qusay aniga laascaanood ee dagaalkood idad isdirra maxay iga jiraan is that any of my business ma hubaysanahay ma dawlad baan ahay ma maamulada labada meeloodaan kala ahay ma halka Soomaaliya aan ka tirsanahay waxa iga qusay kara aniga islaan Yurub ku noolo ilmeeyada haysato maxay tahay nothing marka waxay yeelaysiin inta iska dhaaftaan dadkaan isdilaaya barina walaalo waa heshiinayaane idinku kaalay oo shaqaysta hadaad hore ugu jirtana shaqayso wax la isku baryaay maaha meesha ama baxaag la isku baray maaha yaanyo la gadaayo maaha Mombasa we are not selling yaanyo tomato and banana moos iyo yaanyo aan gadayna maaha waa ganacsi qiimo leh oo aad bari garan doonto qiimihiisa hadaad ku jirto hadaad ka maqan taaba marka uplifting humanity alla helmaamin kollay aniga 100% ayaa u mahad celinaya Mombasa sababtu waxay tahay ya sababtu waxay tahay waxa la yiro umuliso iyo wadaadba shay wuxuu og yihiin uma sheegaan wax badan
وأوجه هلك السنة كجرو تحبذنا سومالي دحيدا كدعا أوجه أو فولا أو في الشيء قرنها أوجه كجرو حتى دحدود لكن أمولسا باسك أمولسا ذا تاجنها إيه وذاك سيوحوا أوجهين وحما الشيغان وحبوا أم الشيغين هراء قصعنينا هراء الله صعنايا سماي هراء الله دقاقايا لكن uplift humanity قلبي كتاجنت وح الله إيه وحن قبان كرو وح الله إيه وحن قبان كرو إنا وحكا قبتان رباه كان سيغاس باس في حيد السوقال إذا كان ساسوك الله إذا كان رباه إلهي كعب ستان هل قف حتى نرشس بدشان لبا قف بدشان صدح قف بدشان أفر قف بدشان هاد بوحا أود بدشان إلهي سنة كيف هل قف بدشان وحا مقلاي سومالي اسكولة $10 واي سنة كي أودن بقال $14 واي عنوك اسكول كاتا كبيس عنوك مسكين ده هالير $12 واي ما يقع عنوك كبيحي كرتا اسكولك ما يقع عنوك اسكولك كبنك بكون كن $1 ربطا إنا حاكو بيس سديد عرورة وغيران أيو نقنا اسكولك بيحي كرتا سنتك wax kasta samay kartaa ceelasha wax badan lagu ma qoro boqol iyo konton laba boqol meesha ugu adag aa leeyahay saddex boqol aa lagu qodaa meel oo mana ah oo aad ceel u qoday dada biyo cabaaya uplift humanity ballantii kambaniga iyo ninkii iska lahaa na waa oofisay adigana xaq ilaahay yaa sadaqa tijaariya u samaysatay ya marka aniga intaasoo iiga egyahay yaasmiin umalaymaa inay waxay ku darto hayso waa daalannahay 8 saacadood ka badanaa shir ku jirnay idinkaa haddana idiin soo cararnay haddana kuwa kalaa sii gelaynaa hurda sooma dhowo marka khayraa isku ognaa aniga xaggayga halkaas intaas waay qofka raba inuu ambaasifka soo biiro qof kasta oo ii soo diray emailaa u diray haddaadan meesha hore ka arkin ka fiiri jonka mailka waay aan emailka uga jecelahay whatsappka whatsappka waxaan u jecelahay inaan group hadhow ku daro oo qofkaan tababaro laakiin emailka maxaan u jecelahay email qofka haddoona lahayn ama uuna email sida loo furay sida loo aqriyo sida loo maamulo aanu aqoonin umbasif ma ka mid noqon karo simple as that umbasif dhan emaila ka bilaabataa that's why dadka ila soo xiriirow aan idiin weydiiyaa emailadiina qof kastoo email ii soo diray 7 maalmood oo lasoo dhaafay emailan kuu soo dira ogow haddaad meeshaada caadigaa ka weydo jonki maalka ka fiira dan ii soo jawaab waana mahadsan tahay aniga yaasmin waa iga intaas abaay macaan ها waxaan ku darayaa ee Soomaalida warka dhageysanayeen caaw intuu hadlayo wuxuu update-yada waxa ku jiray in OES keena la xiraayo saacado gudooda 2 saacadood ilaa 3 saacadood because markii hore software-ka ku jiray oo horan ku shaqeysanayna oo dhan iyo bahalkii dhamaaday oo connectiga dhamaaday kulli waa la dejinaa waxa la keenayaa waaladkeenii iyo wixii oo kala habaysan ganacsiga la isu bedelay wuxuuna ku yiri aniga maalin kasta shirarka aan soo fariisan jiray oo ay idin la hadli jiray idin ma hadlaayo heshiis baan keenayaa shirkad maanta shirkad waxaan noqonay lugeed isku taagtay aniga iyo idinka waxaan naga dhaxay heshiis kaligeena ma aha waa intii fadhiso oo carabi cajab leh oo darajo walba leh marka maanta hadda adiga miis la fariisato doolshana aan la kala googoosanayso nin dhakhtar ah iyo naan PhD holder ah iyo dunida caalamka dad la mid ah ganacsi aad iskula jirtaan oo meel iskula duulaysa isku jeeda atiin isla markiina waa lagu sheegay waa ognahay anaga Yurub hadaan joogno ha isdhiina abraa aniga hadda waxa laga yaabaa xitaa maanta inay jeebkayga wax ku jiro wuxuu yiri waa ka fakeraa dadka lacagta haddaa gashato qofka labaad iyo qofka saddexaad boo isku soo hoos galaba hore lagaaga celinaa daqiiqada kula bixi karta caawaxta waa ku celin ياسمين wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan oo hadda injineerada ay soo qoreen inta hadda hadlaysay in already anaga ma arki karno website-ka waa la dejiyay mogta mid cusub waa la soo saaraa laakiin already waladki waa la diyaariyay $97 oo hore u dhiiban oo la ballan qaaday in la soo celin weena loogu shubay halkaas waxaa ka bilaabanaya hadda geedka markuu xiran yahay 2 saac ilaa 3 saac u qaada marka saas loo dejiyo website-keen wuxuu isu bedelayaa company-ga عاشي أنا شقد دم ولا عدان كحتى اسمه يلا عاش عشان يري وردم بول صوت بينا محدد لي وين معتك وبسايد دم بقي عدان كي يمدوا كالعرراي يعني أنا نفتركين أبدي بكينين واحد ما تفريد بحيل أنا بابليك كلمة كسر هدلاي حاشي عن موضوع السكول أجريمنت كم بيني كلا شقيستان هاي والد كان هالكاسكو يلا
waxaad gadanaysa halkaasaad ka maalgashanaysaa adigan dadkaaga halkaasa lagu hoos keenaa lacagtaadana halkaasaad ka arkaysaa waalidka in and out waa shaqadii saasay u baxday dunidana maanta waa loo fasaxay wixii soo galaysaasi usoo galaan linkigeena soo wareegi jiray oo ootrimka naloogu wareejin jiray hadda waxaa ku aamini kartaa umbaasif xataa fiiri linkigeeni meeqa meelaa laga arki jiray marka adduunyada dhigto meeqa meelaa laga arki jiray marka hadda ootrimka ku noqoto oo aa fiirisa inta meelo laga keli garay wadamo badan oo aadan garanayn ma laga keli garay Ukraine xataa waa ku jira aniga Cambodia arkani Cambodia iyo Poland aa ku jira meelaha laga arka linkigeyga marka walaal linkigaaga haddaad tagtid aad tijaabisid ootrimkaaga magacaaga meeshuu gaaray waxa waaye adigana waxaa lagaa rabaa dadaal for example waxaan kusoo celinayaa markab ayaan kuu keena waxaan ku noloshaada ayaan wax ka bedelaa adigana masaakiintu agtaaga wax ka bedel caawa xataa wuu kusoo celiy wuxuu yidhi aniga hay qiimaynina ma raba maalin kasta inaad thank you idhaahdiin oo qof yani iga dhigtiin gooni ah aniga saasaan shaqadaa uga baxay hawshaan ku ballanna waa idiin dhiibay waxaan idinkala dardaarmayaa noloshiina way isbedelaysaa u ballan qaado id adigana hal qof lee bedelo dhahayaa hal qof bedel noloshiisa aniga haddeertaanayt waxaan raadsanaya ilma agoona meel kalena waxaa ii yaala reer kaloo saas oo kale beerka dhulka ku hay sadaqo jaariye labadaas reeraa wax usuubinaa inteeda kalena anigaaba muxuu ahaa halkayga account la rafanaya ubadkayga laakiin isla markiiba aniga gacantayda dad waa gaari hadda marka aniga tallaabada qaadaya dadka ila galayaan meesha wuxuu ilaah iga siiya iyagana ka siinaa ballantin waa fuliyaan wixii kaloo ii kordhana mashaariicdii dalkeena waxaan ugu qaban karna waa ugu qabanayna anaga dalkeena waa u baahana laakiin ha isreebinay naacey halkeen wax ka keenayey fursaddaanita adiga le kuu taalla saa uga faa'iidaysta haddii kalena berit caloolyo aduu ku dilaa ka shallaynaa liyama hiilin ma dhiis wallaahi billahi 4 habeennimo oo annaga dalkeenaan galnay waxaan ka soo baxnay 9 subaxnimo meeqa saaca fadhina halkaas 5 saacadood aan fadhin saacad waa kana buug waa egyaala aamin war maba seexanin ba anaka maba seexan saa u soo jeednay oo fiidkii hore aan u shaqaysanaynay yaa aana lagu yiri 4 o'clock waay 4 o'clock oo anaka waqtigeena UK oo already maaragta xilli oo maaragta oo xilliga salaada la tukanayo xilliga salaada u kacnaa anaga markaa soo kacno salaada tukano muka horna wax badan maba joogno hal saac bar camal aan jeefta malayna ani oo soo kacno salaada tukanana waaba galnaba hadda dhawaa ka soo baxnay haddana waa kan idinka idin la hadlay afka waxay noogu soo taagayaan founders la siinaa waxay founders wax la siinaa foundernimada hal sano ka bacdi waa la tirtiraa waaba ku qaldamo ba dhahay looyarada ay ugu qabsaday iyo dadka maaliyadda ay ugu qabsaday kulli waa sinaanaynaa dad intaas la agbi inay ila lahaadaan wuxuu ku yiri weliba xataa haddii aa qalad gashid wuxuu ku yiri ama adiga iska tirtirtid weli founderada waaya haddii dhiliid ahaan waxaa kasoo geli kartaa reseller le albaabada meesha founderkan waa la iskugu xiraa marka founderada waxba indhaha kusoo taagina annaga naftirkeena adinkaa isla sinaanaynaa midda kale back office hadda oo founderka leeyahay xataa waa la baabi'inayo OBS la iskugu imaanaa saasuu sheegaha kulliga isku mid leena magaciina imaanka iska soo ridina wax gaaroo naloo sabaynaan mala annaga markaa waxaa idinkaga horreyn inta soo daashi intaas ixtiraam kulen maalinba lugaa tartiib nalooga siiya because sharciyay noqotay 1 milyan barna lama lahaan karaa ninka hantidiisa gambari inuu shaqeeyaa la rabaa awalba caqli gal ma ahayn isaga laakiin soo jacaayo ku bilaab wixii sharciye gash waa soo weynaatay waxa naloo sameeyna waad arkaysaan already maanta waa tabriisa dambe isaa kun 5 casho gudooda xataa waxa waa arrintu isbedelay marka adiga hadda ka faa'iidaysteeda kale annaga hadda moodin aniga ku qoranayo aniga hadda arta ii imaan hadda qof cusub tahay ha ii imaanin ina aniga dan kale hena ku tusina aaminana wiligaas oo ha u imaanin qof kale oo baasi faraas ama baasi gaal cad u tahay hadda dan kaleeda aniga ha ii danayn aniga wadadeedu waa aqaana maray system ka dhan waa iga dhaadhacsan dad xataa uma baahni hadda intii dadkeeda caras Yugoslavia jira Slovakia waxa jira baabiyi New Guinea Singapore ku jirto qof walba familkiisaan u lahadlaya marka anaga Soomaali xumeed ma noqonaa ma aamusna ma qarsanaa waxan ee dunida kala boobayso ila dunida boobaysay warkaale 10 Soomaaliyeed oo kaale 10 jawaan qaata waa inaan dhaha intaas kaliya oo hadlayna inta ku jirta meesha oo affiliate iyo inta founderskana oo aniga ma shaqaysana idinka meel gaar aniga hadda meel gaareen habeen kasta ma seexdo aniga waran
meeqa habeen ay aragtay anoo meelaha ku jiro oo subax kasta shir ku jira adiga shirkaas maa ku jirtaa maalina waa shaqeeyaa habeenna waa shaqeeyaa maba seexdaba sida unbaasif u timidba marka haddaan kaa dadaal badanahay waa kaa fursad badanahay haddaa rabti inaad horumar gaartay ha fikirin haddii yaasmiin iyo aaminaba halkan ay mareynay iyo heblaaya halkan ay martee luuqad kasta aad taqaanid luuqadaada ingiriiska xataa ma ku xirayso laakiin qof kaba gashtee noqo meeqa hindiyo badhaalaynaysa aragteen oo youtubeyada ku jirto dadkooda la hadlo oo isa soo saaray dadka ugu ixtiraamka badan ingiriis ma yaqaanaan leaderska waa wada gabdho caaway wada saarnaan waa arkayseen ninka CEO-ga yaqaan adiga ku yaqaanaa ninka CEO ku ah kuma yaqaan because maba aadan tegin weligaa shir meelaha iska taagtaagni marka haddeertaan fursada kuu taa sidaa haddii u xamaalta dhexda u xiratid oo naag nool ama nin nool a isaga dhigi lahayd adiga kuu taala arrintaada iyo muxuu ahaa fursadaada gacanta adaa lagu geliye sala allahu mubaarak ma jiri doonto aashaa saan yiri abdheed dambena ma jiri doono kana ugu dambeyn doono malayna waa la sameynaa waa mahadsantihiin aad iyo aad aa u mahadsantihiin intaasaan ku dhaafaynaa qofkii ugu dhaafa ama gadaal ka timid dib u daawo barnaamijka insha allah waa abdheedyo badan oo cusubna waa mar walbaba macnaha waqtigiisii madamaajigdu ma ahaan karo waayo waxyaaba badanaa isbedelayo mar kastoo isbedelo horaa idinkaga soo sheegana mar kastoo isbedelo horaa iskaga soo subscribe our channel khayr ayaan idin rajeeyay jimca mubaarak ayaa idin leenahay kulligiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu digniintana laidin sheegay aamina idiin sheegtana caawa wuu caddeeyey cid walba wuxuu yidhi anugu digniin ku siinaan kaa tirtira account-kaaga haddaad shuruudahan kuu sheeg because cadow badan aan leenahay waxyaabeena banaanka nooga soo bixin ilaa suuqa si fiican lugeena isaga taagayno isku danaan nahay noo ilaaliyo kambaniga teeda kale waxaa kaloo la sheegay kambaniganita ma aha getrich inaad lacag kusoo sawirtid flyeriskaaga oo cash badan dad kusoo sawiraan iyo ama aad tiraahdo lacaga badan aa meeshaan idka sameeyey 7,000 laga sameynaya 8,000 waxa lacag dhan ma ka hadli kartiin aniga kambaniga different aan u sameeyey ku dhahay dadka faa'iidada kala hado يعني ماشي قيمه اللي باركانيت لعق ولي افكار هالصومر دنبي كم انت سيتو امنه صحيح عدك وحريه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا واحيره بغريغو ما دنا انيغا غريغو ما دنا waa maadsantaa baayasmin waa maadsantahay insha Allah tan kulan dambe waxa aad leena sidaas iyo nabadgelyo